Tilmaam Academy. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Kusoo dhawaada mar kale iyo course-keeni English Vocabulary in Use Elementary Level. Today halkan waxaan ku qaadan doonaa Unit 11. Unit 11 waxaan ku baran doonaa in the kitchen. In the kitchen. Jikada. Jikada markii la joogo ereyada jikada laga dhex isticmaalo oo dhan ayaan rabnaa inaan barano iyo sida loo isticmaali karo ugu dambeyn. bal aan isla fiirino sectionka ugu horeeyo waa erey aad u gagaaban oo marka hore aadna loo fududeeyo sharaxaadooda. erey kastana level ayaa la siiyey, waa level gareeyay, falaar ayaa laga jiiday shayga magaciisa. marka waa erey ka kooban. waxaan isku dayi doonaa in aan ka daba dhihi doono markaas. anigana waan ka daba dhihi doonaa, fadlan iga daba dhiha markaas. A. What's in the kitchen? What's in the kitchen? Fridge, Fridge, freezer, freezer, tap, tap, microwave, microwave, cupboard, cupboard, shelf, shelf, worktop, worktop, bin, bin, washing machine, washing machine, sink, sink, cooker, cooker, dishwasher. dishwasher. bal aan isla fiirino ereyadaas. What's in the kitchen? maxaa yaala jikada? waxaan ku bilaabi doonaa fridge. waa fridge-ka ama frinjer. freezer, qaboojiye, almost waa is leeyihiin. bin waa recycle bin, waa meesha qashinka lagu rito. washing machine, midka dharka lagu dhaqo, waa makiinada oo dharka dhaqdo, waa qasaalada waaye. okay. tap, tubada. sink, waa meesha weji dhaqa ama farxalka lagu dhaqdo. sink, godkaas waaye. microwave, waa midka cunada lagu kululeysto. microwave. cupboard, armaajada. waxaan dhehnaa cupboard. hadda waa isticmaali doontaa ereygaas. waxaa lagu weydiin karaa, waxaa la dhihi karaa where is the cup? cup intuu yaalaa? waxaa dhihi kartaa it's in the cupboard. waxaa dhihi kartaa wuxuu ku jiraa armaajada. so very important. okay. shelf, meelaha wax la saarto waaye, iskafaalaha ama bakeeri saar ama baaquli saar ama buug saar. shelf oo noqon doona markaas. worktop, waa spacekaas oo meesha loogu talagalay in la saarto bakeeriyada iyo saxamada si shaqada meesha looga qabto. dishwasher, dadka qaar waxay haystaan machine ay ku dhaqdaan weelasha cuntada lagu soo cunay oo dhanaa la gelin doonaa, then isagaas dhaqi doona markaas. cookerka waa kaas oo cunada lagu kariya isagana. alright. waxay la tahay inaan isla fahnay ereyas. waxay u baahan tahay keliya in aad ku celcelisid kadibna mid kastana aad taqaanid sida loo isticmaali karo. okay. section B aan isla fiirino, ayagana aad uga gaaban yihiin. waxaa u badan tahay inaan ka daba dhigi karno insha allah. B. Things we use in the kitchen. Washing up liquid, washing up liquid, tea towel, tea towel, saucepan, teapot, coffee maker, kitchen roll, frying pan, cloth. bal aan isla fiirino bal things we use in the kitchen. jikada marka la joogo shayaasha la isticmaalo, kuwaas waa kuwo shayaal waaweyn waaye, qaarkood meesha built in ku ah lagu soo dejiyey aan la qaadqaadi karin. bal kuwa la fiiriye washing up liquid, waa dareere like wax lagu dhaqo like oomada shaambada booskooda camal ku jiraan. tea towel, waa shukubaan wax lagu soo qabsado, waa qiyaasta weelasha lagu soo qabto. saucepan, waa digsigaan arkaysaan waxyaabaha qaar loogu talagalay in lagu shiilo. teapot, exactly waxay eg tahay like jalmad camal waaye. coffee maker, kanna waxaa lagu samaystaa kafeega ayaa lagu shiitaa. kitchen roll, like waa tissue camal waaye oo jikada yaallo oo mar kastaba la soo jiidanayo laga goosanayo markaas. cloth, waa mara caadi ah ama shukubaan camal iska oo
alaabta lagu soo qabsado. Frying pan asigana waa weelkan oo wax lagu shiilo, baradhada lagu shiilo, malaayga lagu shiili karo. Frying pan marka waa ereyo inta badan very important ah. Hadiiba guri aad tegaysid ereyadaas laga yaabaa in hadda u baahantahay markaas. Next section C aan isla fiirin doonaa. Still waxaan ku jirnaa weelasha marka iyo wax lagu cuno ama wax lagu cabo. C. Things we use for eating and drinking. Cup. Cup. Bowl. Bowl. Fork. Fork. Knife. Knife. Chopsticks. Chopsticks. Spoon. Spoon. Glass. Glass. Plate. Plate. Mug. Mug. inta badan sawirka naga saacidaya inaan fahanno cup. anaga waxaan ahnaa cup aan ahnaa somen. Cup waa marka sida caadiga ereyga cup. Okay, bowl waa baaquli caadi ah. Fork waa fargeeta. Knife waa midi. Chopsticks waa laba ul oo dadka qaar ay ku cunaan baastada ku cunaan, especially Chinese-ka iyo dadka noocaas oo kale ah. Chopsticks ala. Spoon qaando ama qaado. Glass plate waa saxan caadi ah. laba kaliyan bowl is plate, mid kastaba sawirkiisa ka fahmi kartaa. Mug waa isagana waa dhoob camal, waa nooc ka mid ah bakeeri oo weyn waaye, waa koob weyn. Mug. ugu dambeyn waxaan fiirin doonaa expressions, sidee loo isticmaali karaa ereyada hadda aan soo baran dhammaantood. Expressions aan fiirin doonaa markaas. markii la fiiriyo meeshaas. D. Expressions. Where can I find a mug or a cloth or some kitchen roll? They are in the cupboard. Can I help with the washing up or cooking? Yes, please. You can dry the plates, or you can cook some rice. Where does this cup or plate or frying pan go? Put it in this cupboard, please. Alright, sidee loo isticmaalaa markaan fiirin doonaa marka expressions. Where can I find a mug? qof aa rabtaa gurigaas la joogtaan, waxaa dhihi rabtaa shay hebel xaguu yaalaa. Let's say waxaan soo qabsanaa hadda a mug. Where can I find a mug? xagee ka heli karaa mug? ama waxaa dhihi kartaa dharaa raadinaysay, waxaa dhihi kartaa where can I find a cloth? ama kitchen roll ayaa raadinaysaa, waxaa dhihi kartaa where can I find a kitchen roll? qofkan wuxuu ku dhihi karaa hadduu rabo B, qofka kale wuxuu ku leeyahay they are in the cupboard. waxaa ka helaysaa in the cupboard, armaajada ayaa ka helaysaa. B. Can I help with the washing up? ma kaa caawin karaa weelashaan aad dhaqaysid ama cuntadan aad karinaysid? mid karata dheh. kan hore can I help with the washing up? cuntadan alaabtan ma kula dhaqi karaa waa mina. ama waxaa dhehaysaa can I help with the cooking? cunadan ma kula karin karaa, ma ku saacidi karaa waa mina. qofkan kale muxuu leeyahay yes please. yes waa saacidi kartaa. you can dry the plates. isii qallaji saxamankaas. haddaan cunto lagu cun rabo isii qallaji. haddii tan ay tahayna cuntada ma kaa caawin karaa inaan kula kariyo? yes please. you can cook some rice. waxaa isii karin kartaa some rice. marka ereyga muhiim uu ku yahay cook inaad baratid waaye. dry waa inaad barataa, iyo qallaji waa mina. okay, ereyadaana muhiim ku yihiin. ma kaa caawin karaa? can I help with the adii kartaa markaas. shay hebel xaguu yaalaa ama xagee ka heli karaan waxaa dhehaysaa where can I find adii kartaa. okay, ugu dambeyn waxaan kusoo gabagabayn doonaa where does the cup, where does plate, where does this frying pan go? mid kastaba shaygaas xageen geeyaa waa meena. shaygaas u soo qabato qofka waxaa leedahay shaygan xagee geeyaa. marka waxaa leedahay where does this cup go? bakeerigan xageen geeyaa. kadib qofka wuxuu leeyahay put it in this cupboard please.
armaajadan ii geli haye ku bedel saxankan xagee geliyaa dheh xagee geeyaa where does this plate go saxankan xagee geeyaa put it in this cupboard please markaysaa marka qaab noocaas oo kale waaye buuggan markaas wuxuu u samaysan yahay erey kasta oo bold ah erey kasta oo fartan buurbuuran ku qoran muhiim ayuu ku yahay isticmaalkiisa inaad barata laga rabaa tip ayaa lagu siin doonaa markasta hal farsama lagu sheegi doonaa oo dardaaran fiican ah stick labels on objects in your kitchen with their English names on them ereyada magacyadooda buuggii qalinta qabatid haddii aad xifdin weysid waxaa samaysaa label soo qabso sida cup-kan firi maxaa la sameeyey warqada la soo qabtay cup ayaa lagu qoray then biin yara la soo qabto waa lagu dhajiyey waa bakeeriga gees laga saara markaas so markasta bakeeriga ishaada qabato waxaa fahmaysaa English in lagu dhaho this is a cup waxaa fahmaysaa waxaa samaysaa qaandada soo qabso gees ugu xir koollo kadibna spoon ku qor kadib ishaada la qabsan doonto dhowr maalin kadib weliba kuwa aadan isticmaalin gees dhigo isha ku qabo maalin kasta saasaa laga wadaa bes you will see these every day and this will help you to learn the words saas ayaa ereyada qaar lagu baran karaa tijaabi maybe inay ku toostaa laga yaabaa dadkan hore ayay usoo tijaabiyeen waxayna ugu talagaleen buuggan inay ku baraan dadka luqadda aan u dhalan English as a second or English as a foreign language dadka Englishka ee u tahay luqad labaad ama luqad shisheeye u tahay sida annaga oo kale marka qaabkaas ayuu noqon karaa qaabka ugu macquulsan aad ku baran kartid waxaan is dhihi karnaa chapterkeena chapter 10 halkaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa insha Allah si aad usii fahantid chapterkan sida caadada noo ahaan jirtay waxaa aad u fiican inaad ka shaqaysaan exercise-ka ka dambeeya chapterkan halkaas ayaan ku gabagabaynaa insha Allah chapter 10